السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my channel. kusoo dhawaada jilka cusub channel. maanta waxa aad ugu faraxsanahay walaalaha dhamaantood channelka maanta kusoo biiray. maanta wuxuu channelkan yahay maanta nolosheeni meesha ka soo bilaabatay amba jacayl. maanta waxa ka hadlaynaa jacaylkii aniga Muniiro asla soo marnay. maaragtay idinkana waxaan yarabnaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo in qaybta komikada insha Allah nagu soo aad qorto qaybta commentiga nagu soo qortiin maaragtay sidaas ku baranay meeshaas ku aragnay waxyaabahaas hadii aan macnaha maaragtay hadda telefoon isku baranay hadda live isku aragno kala hadda warqad isku qorno kala meeshaas ku barano marka idinkaan igala sugaa meeshaas ku baranay marka maanta waxa ka bilaabayaa nolosheena meesha ka soo bilaabatay oo jacaylkan iyo farxadan maanta haysto meesha ka soo bilaabatay oo haafa ka hadlaya barnaamij haaf kalena Muniiro iskale way ag fadhida ayadana waa warabin doontaa. anigi Muniiro waxa isku baranay habeenada kamida maaragtay hadda hawsha waxaan iga bilaabayaa haaf marka haafkaas markaan iga bilaabo dhameystirkii idinkaan iga rabaa sab ku leedeen habeenada kamida walaasheed Muniiro waxa yaray saaxiibayiin amba jacaylkeeda gurigeena ku balansaday sababta lagu balansanayo maxay tahay Muniiro familkeeda wuxuu ahaa famil adag maaragtay gabdhaha gacanta ku haayo aan u ogoleen ragga shaqaansiga loo diidanaa markii gurigeena imaaday waxa jaanis u ahayd in Muniiro hore isku soo raaceen maaragtay waxa ku balansan saaxiibka ama kaygaada ku balansan jacaylkaada marka xabadan akaasi haya aniga markaas igu qosashay waxay tiri wariyaha waa yartay muflinkan baa hadda bilaawday wariyaha gabadhu waa yartay iga dimbaajin iga leexa amal okay anuu qoslaayo dhoola cadeenayo waxa yiri maya waa ku sii hayna sababtoo ay inay meel cid fadhi lahayd xayrana u sii sheekeenayo marka waxa yiri adigana sheekadaada wado hadii kale way ku qasaysaa sababtoo maaragtay waqti dheerna qaatarta ama sheeko dheer aqaalatid hadii ku daba socotay ku ag fadhido wax warka lagu sheegi lahaa dhanna qofka ka dhuma ayadana war kuma socdo marka waxa rabaa marka jaaniski ko meesha soo ka bilawday kabacdi anigi Muniiro waxa wada yeelanay xiriir wuxuu ka yimid maaragtay jacaylkan hadda aragtiin sideedaba qof buu ku horeeya qof buu ku dambeeya marka jacaylkii ku horeeya misweydii kartid jawaabta la soo sheega labadeen iyo jacaylku horeyn karaa qofku ku dambeeya arama ana ahay ما يعني قوها والله تاسفايد في عمل قياس جعلك Muniiro كوري مس أنا بكوري وكقدمني حقاس مركا مال كميدا Muniiro حافظنا بسوق ومادي حافظ مركي بسوق ومادي مرتي أهان أوكي سور اللغة أنت أسكت قشتي إقرأ اللغة حوجا مارت إيش مرتي ومادي مركي ومادي أنا كان الرياضة حافظنا أتكنين مركز محاها qofka cusub caalamka jecel marka habeenkaas waxa ka dhacday waxdara ee guriga imaaday ugu yaraan 10 rag anoo imaarat in saf la soo galay aniga marka arkay in ragga saf ku jiraan waxa yareynay waa ka qalay magaalada iskaani waa ka tagay habeenkii labaad meesha la taagan yahay wala dhawaya marka dhalinyaro la wada yahay waa taqaaniin darbiyada la fadhiisan jiray maaragtay qofba maaragtay qofkiisu la sheekaysan jiray amba walis balansan jiray jardiinka caawno balana saacad hebel meesha noo balana la wada dhigi jiray saacad hebel cajiinka markaa soo doontida noo balana marka saacad hebel maaragtay markaa soo doontay faynuusta maaragtay gaaska soo doonta noo balana marka waa waxyaabihii isku balansan jiray aaladan hadda imaaday telefoon la wada hadlo facebookan waxyaabahan kala la isticmaalo oo hadda jacayl laga wada jiro laakiin jacaylka hore dhan wuxuu ka wada bilowday فينوست عجينك يلسكو جايجري ملاص جانس عين مركب صح والله شكلها هذا هو كده قال محد دريمو يعني سيدين لطهاي أنا والله ما أنت محد دريمو تعال اوكي صح واي جعل خوفكم مركو جعل كيس ورس wax susto kala laabta farxad iyo wax soo galaayo iyo galgaceel marka habeenkii saddexaad waxa go'aan gaaray in Muniiro أمارت إيش بأبريرو أو لا هذا لكن أنت لا هذا الكور يرى صاحبنا إنه أسكوه فعلين أو هو إيشو بندقتي إنه Muniiro جعلي مركو حويري ني وربا ني ما تسوي يساعد برنامج كاس أوكي أنا نقف همي كجراء همي وعشت
sababtoo saaxiibkay hadda saaxiibkay filimka inuu daawanaya laga yaabaa marka waa is ogyahay isaga markii macnaha uu barnaamijkaas oo keenay okay iri habeen koowaad meeshaas loo tagnay jirjiina wada fadhiyeen ayadii walaalaheeda u tagnay meesha ku wada qosqosnay meesha cabaan isku baranay meesha ku wada hadalnay kabacdi waa ugu soo tagay aniga asaga sheekadiisa meel ku dambaysa ama meel ku dhamaystay ma ogeen habeen ku xigaas arkayna war maxaa meesha iiga soo tagtay maxaa iigu heli weysay maxaa iiga wadi weysay kuwa kala meesha firaaq ma ahayn meesha buuq ahayd camal aniga dantaa raba maku hadli karin in aad u baqaayon ahaa kabacdi habeenka labaad sidoo kale haddana sameynay waa tagnay markaa tagnay habeenka labaad waxaa isku dayay inay barnaamijka ka kala firaaqeeyo waa ii suurta gashay marka kala firaaqeeyey laakiin kabacdi maxaa dhacay taas isweydiinaya kabacdi wixii dhacay yani qaybtiisa markuu dhammaysto waxaan u malay doonaa video way dheeran doonaa laakiin qaybta labaad aan qaadan doonaa insha allah kabacdi wixii dhacay asagoo ka gudbaa hadda anaa hadhow meesha kasii wadan doono marka horta rag way aqli badan yihiin taasaan beenayn rag way aqli badan yihiin is ilaaliya gabdhow haddana familigana maasha allah weligay ana darjin kaligay ma fadhiisan haddana darjinka lagu gaadi jiray fiiri sheekada waa waxyaabo ugu muhiimsan ma garata waa xilliga waa macnaha jadwalka jira ee wax laisku gaadgaadi jira waaye waa ka gudubna barnaamijkaas marka muniira dhamaystiri doonta qaybteeda waaye qaybtaas kala muniira waa isbaranay maasha allah xiriira wada bilaabay yarki meesha ku dambeeyay anaa xiriir meesha ku dambeeyay ayadaa ka dhamay doonto ya asaga meeshiisu kasii wadana hadda xiriira wada bilaabay waxaa noo bilowday galgacayl iyo farxad habeenkaygii ugu horeysay muniiro jirtiin aan la fadhiistay waxay ii ahayd habeen ii farxad badan habeen waxay ahayd roob da-ay habeen waxay ahayd oo jawiga fiicnaa nimcadan maanta aa haysto habeenkaasi barwaaqo u ahayd marka waa ii farxad maantay inay garab joogto maanta aasi garab fadhino maanta jacaylkeena aan ku guulaysana waa ii farxad habeenkaas sheeko waxaana wada martay aad iyo aad u qaaliya waa wada sheekaysanay meeshii maaragtay ay kasoo bilaabay xiriirkeena ka wada hadalnay qaabka isku gaadgaadi jirnaa ka wada hadalnay waxaasoo dhan ka wada hadalnay intee kaa dhex arkaa i dhahay dadka horena waa ogtihi maaragtay biyaan kaa dhex arkaa cuntada cunaa adile hortaagan waxyaabaas iskuul waa dhigan jiray marka iskuul aa dhigan jirna buugga aqorayadaa kaa dhex arkaa dhihi jiray waa naxay waana macnaha wallahi waxaa barnaamijka anaga usoo bandhignay ayaa waxay tahay inay gabar sheekadan ku dhacdaa laga yaabaa iskuul ayuu aadi jiray anigan waxaa qof aad u aqli badan hadan xishood badan run ahaantii waxaan dhahay iskuulkaaga maa aad aqliga ugu doorsada mistri waxaan dhahay ma ka baqi jir waxaan dhahay abo iskoolkaaga aadmo markaasuu wuxuu igu dhahay buugaba haddaan furo adaaba kaa dhex arkaa anigan waxaa allah aqliga ku sirnaa bariiskan kaa dhex arkaa baastadan kaa dhex arkaa dhihi jire ninka wuu ka aqli badinin haddana habeen walbaa lii qori jirnay iyo ka aqli badan iyo ka aqli badan barnaamijkaas ugu shidnaa jiray marka sheekada meesha kasii wadeynaa ogaada kastas marka sheekadayna markaa dhamaysanay aniga muniira isfahanay waxaa dareemay inaan farxad helay waxaa dareemay inaan jeceyl helay jaceylkii kasukow marka waxay ii noqotay inay ayada ay dhahdo waa laabanaa waxaa u laabanaa meeshaa ka imid madiina ka imaad ana yaqshida deganahay ayada waxaa noo umaaday keliya marti booqasho way laabatay markay laabatay kabacdi waxaa ka wada hadli jirnay telefoonka waqtiga ii imaanayso amba waqtiyada ay soo laaban doonto waxay ii ahayd adduunka maalinka ugu farxadda badan galabtaas waa shaqey jiray meel dukaana ka shaqey jiray telefoon nation oh ya meesha marka dambe soo gasho doonaan laakiin mar dambe soo gasho doonaan laakiin waxay noqon jirtay inaad telefoon aniga hormuuda xaafadda noogu jiray telefoon inay inta baranji imaado ee na soo wacdo ayagana marka dambe waxay xaafadda gashteen telefoon leeshin waxaa fursad u helay inaan anigana meesha ku shaqeeya nation ka helo ayadana gurigeeda ee nation ay lahaato waxaa meesha kasii aas-aasmay telefoon leeshin waay leeshin qof walba oo soomaaliya leenka guriga ku jiro kala fast telefoon camal sida loo yaqaanaba marka leelenkaas waxaa meesha kasii aas-aasmay inuu jacaylkeeni sii adkaado waxaa sii helay maaragtay ii sheeg farxad badan waxaa sii helay hadallo macaan waxaa sii helay maaragtay galgaceel badan sababtoo mar walba markaa wada sheekaysatiin waxaa sii kordhahaya jacaylkii mar walba markaa wada hadashiin waxaa sii kordhahaya jacaylkii mar walba markaa maaragtay ii sheeg oo hadalla ay isdhaafsatiin oo kale waxaa sii kordhahaya farxaddii okay
bilka bacdi waxaan noqotay inay noo soo laabato ay xaafadda kusoo laabato maalinkaas ay soo laabanayso waxay ugu soo mari doontaa meesha aan ka shaqeynayo waxay dhahdaa waa soo laabtay meesha bas ugu soo degatay anaa bas kala soo saaray xaafaddiyaa sida ugu soo diray marka waa dareemi kartiin qof wax jecel ee haddana dukaankiisa loogu yimid meeshuu ka shaqeynayay haddana maaragtay isheeg soo fasaxay soo diray gurigeeda u soo diray sii joogi kartaa marka meeshaas waa maya su-aasha taagan waxaa go-aansaday inaa isla dhaqso kusoo baxabo aa soo daba raacabo galaba aheyd waa soo baxay guriga imid guriga markaa imid maaragtay isheeg dhar bedeshtay lis carcarfiyey waa qof shaqeynaya iyo qof maaragtay isheeg markii maaragtay ya su-aalaha iweydiisa waxa kamid ah waa caraf badantaa waa nuureysaa markay dhahdo nuurkaas adigaa iskale farxaddaas adigaa iskale waa hadallada oo aad iyo aad mar walba aan wada isticmaali jirnay okay marka intaas ay noqotay waxaa wada imaanay habeenkia fursad wada ballanay galabtii is aragnay waxyaala sheekeysanay habeenkia ballanay isla markaas waxay fursad noo aheyd oo kale xaafadda abararteed maaragtay ii sheegtay wada ballana sidii habeenkia ku wada sheekeysanay maasha allah laakiin sheekadan sidaan ma ku dhammaan karto sababtoo sheekadan sanado badan ay soo socotay wax badan ay soo socday marka sheeko maaragtay ii sheeg wax yar lagu soo koobi kara inta maahan waxaa laakiin nii rajay doonaa inaan la wada socon doontiin qeybaheeda labaad waa sax soo oo sheegay xabiibi sax baa xabiibkeyga soo sheegay saacad kuma dhamaanis waa 12 sano sax maasha allah run ahaantii qaybta kale aan gelaynaa waayo wuu badan yahay videoga waa nagu dul caajisaysiin waxaa jirto jacayl keligiis ma socon karo wuxuu leeyahay dad caawiyo garab sax dadka garabka nala noqon insha allah videoga labaad iyo ku dhaafin iyo ani qaybteeda dhimanaya qaybta munira dhiman munira qaybteeda dhiman my rajo qaybteeda dhiman videogeeda labaad marka ana qaybteeda labaad qaadan doono see you guys and la soco qaybta labaad la socdo qaybta labaad waxaan leenahay dhammaantiin waan wada jecelnahay family walba waxa u rajeynaa farxad iyo galgacayl waxaa u maleynaa family walba inuu xasuusan doono jacaylkiisi marka dhib walbo yimaado waxaad ku ilaawdaa jacaylkaadii hore marka insha allah waxaan leenahay asagana markiisa waxaa ka sugaysiin sida uu guuleysan doono muniro iyo aniga sida ugu aqbali doono asaga ogolaasho aan u siin doono aan dhigi doono qabal waa ku ogola waa ku rabaa tan kale asidii weydii ayaa waxay tahay waxaad sheegtiin oo idin dhahay labadeena iyo jacaylka ku horeeyay yaa la ilaabin arrintaas mid kale yaa la ilaabin maaragtay noo soo qora labadeena qofku jacayl ku horeeyay mid kale yaa la ilaabin sidaas ku baranay intaas ku baranay barashadeeda ka bilaabatay waa muhiim waxaan noo sii socon doono barnaamijyadeena waxaan leeyahay mahadcelinayaa walaalaha janalkan kusoo biiray waxaan leeyahay guys dhammaantiin waa mahadsantihiin waani arkay waad farxad geliseen insha allah sidoo kale walaalaha dhammaan xaajigiga oo noo soo duceynayay waxaa idin leenahay ininkan sidoo kale duco aad ii niyeysateen aad noo soo duceyseen aniga iyo xaajigayga حاجة هذه اللي يدها أنا جي حبيبك دعاء نوصل دعاء سن وحلا إذا كتوجا مدة سيمد لمدة وأنا كم هسنتي عطسي أيت جلسين أصحاب ما يرجع channel 2 ساكن وحدا ما يرجع channel 2 أكو إيمانا وفانا بيست ما يرجع channel 2 يس أذن أفرح سنة دتك منير ودتك يجي معناتي dadka muniro aad ugu faraxsanahay qofka ayada ku qanacsanto ku faraxsantahay bulshadeedana waa inuu qanacdaa wixii ka dambeeyo muniro cid walba ka dambeeyso waa jecelahay insha Allah waxa uu tageena walaalaha dhamaan muslimiinta wadana maxamed waxa idinkaga tageena ini oo ahaa midooway sheekadan way dhiman tahay la soco assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh